بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وهورين madaxda halkaan isugu wada timid haday ahaan lahayd heer jaaliyada ururada ergeyga gaarka ee arimaha nabadeynta iyo dhaxaadinta Geeska Afrika bulshada reer Finland guud ahaan dhamaan inta ka soo qayb gashay madashan quruxda badan ee maanta aad halkaan sida kalgacalka la noogu soo dhaweyseen say wada leeyihiin dadka magaalada Helsinki degan caasimadda iyo kuwa kale ayaguna ka yimid gobolada ama hareeraha ee magaalada ka yimid dhamaantiin waxa idin leeyahay maasantiin qof walba halkaan joogo waxaan ku salaamaa mansabka iyo maqaamka maadaama ay tahay markay ugu horeysay aan Finland imaaday xogaa waxaan isleeyahay hadda waxaan ku jiraa dadka in aan barbarto marka qof walba waxaan leeyahay mansabkiisa maqaamkiisa aan ku salaam marka waxa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh بعد سلام هذا الورطة قيميسا intuu nuxur lahaa iyo dardaaran ba waxaan isleeyahay ragga halkaan wada yimid ee bulshada qaybeeda kala duwan ama labeenta bulshada reer Finland dhameeyay dadka halkaan ka hadlay waxa aad ii soo jiitay ninka odayga ah ee aad ku qanacsan ninkaas oo kale Soomaali u baahan tahay gudoomiyaasiin nin aad xigmad badan oo wuxuu ku bilaabay kaftan xigmad iyo maxay toole in badan oo isdaba taalo marka waxay u baahneed fahan dheer runtii hadaladu isku daba tuurana waxay wax aad ma taqaana u xigmadaysan waxyaalaha kale aad ka soo jiito waxa kamid ahaa bulshadan reer Finland ama Soomaalida halkaan joogto waxay ka dhaxashay ama halkaan ka faa'iideysatay tacliin runtii waxa ugu fiican ee bulsho ama ummadi ku hormarto ama wax ku qabsato ama hadii ummad ay isbedel sameynayso ay ku sameyn karto waa aqoonta ama tacliinta maxaa yeelay aqoonta ama tacliintu waxay wax badan ka qaadataa horumarka bulshada hadii aad aragtaan tusaale yar dalkeenu markii dagaalada sokeeye uu ka qarxay sida aad ogtihiin ama ka warhaysaan adeegyadii asaasiga ahaa ee bulshada ay ugu horeysay tacliinta iyo caafimaadka markay go'een waa dareemi kartaan waxa soo baxay bulsho ama dad waxa soo baxay violence ama maxay toole dhibaatooyin heerar kala duwan leh ugu badnaato dhalinyarada annagoo kale ku soo kornay duruuftaas adag ee waaqici ilaa mar raxmalaan yaro ilaahay u naxariisto fursad heshay ee waalidkoodu ku dadaalay tacliin iyo aqoon helay yani waxaad garan kartaa marka gaabka 900 ilaa 2000 dhalinyarada joogtay iyo kuwa maanta jooga farqiga u dhaxeeyo yani meeshaas waxaad ka fahmaysaa duruufta ay leedahay isbedelka waxbarashadu ay leedahay markii waxbarashadu la waayay ama go'day culayskay dhibta dhalinyaradu soo wajahday markii dad Soomaaliyeed ay hay'ado mutadawiciin ah iyo ururo iyo iskuulo iyo maxay tole hay'adahan ee manaahijta intay u kaceen guud ahaan si volunteerism ah ay dalku hay'adihii waxbarashada iyo heekalka hadda xeer u hanganay dawladdu ay maamusho wasaaradda waxbarashada laakiin waxay ka soo bilaabatay hay'ado barefada markii hay'adahaas barefadka markay u kaceen waa dareemi kartaan waxa ay kow ka bedeleen waxay waaqica bulshada waxay wax badan ka bedeleen marmar ka dambeeyso fahamka iyo dhalinyarada meesha joogto waxaad dareemi kartaa faa'iidooyinka ay leedahay waxbarashada markaad dib u fiiriso markaasi dhalinyarada waxyaalaha ay u fududaay ama wax walba u aha qariib iyo markay bulshadu wax baratay sida u kobacday ay isu bedeshay maanta waxay ku socotaa Soomaaliya meesha ugu fiicnadan isleenahay meesha wadamada horumaray asaageeda ama dariska ah ay taagan yihiin ama meel ka fiican ay Soomaaliya hadda ku socotaa Soomaaliya waxa waaye Soomaalida shalay taqaanimahan Soomaalida shalay way ka fiican tahay maanta tan maanta joogtan waxaan rajeynaynaa insha Allah beritoole meesha ay sii tiigsanayso inay ka sii fiicnaan doonto haduu Ilaahay yiraahdo markaan overview idinka siiyo xukuumadda aniga wasiirka ka ahay ee xukuumadda dan qaran Soomaaliya saad ogtihiinba xukuumadda anaga waxay ku dhisan tahay mabaadi ama ay ku shaqeynaysaa 25 wasaaradood ay ka kooban tahay
hay-adaha dawligana markii la isku dardaro waxay gaaraan 70 macna ajansiyada markii lagu daro wakaaladaha ee hoos yimaada xukuumadda inta waxaan ka shaqeynaa 6 mabaadi' waaweyn oo asaasi ah waxaan isleenahay lixdaasi madaxda naga sareysa ama dawladda ayaan madaxdeena noo soo xushay mabaadi'daasi waxay asaas u tahay Soomaalida cusub waxay horumarin doontaa ama wax badan ka bedeli doontaa haduu Ilaahay yiraahdo ee lagu guuleysto inteeda badan inay wada dhaqan gasho Soomaaliya sida hadda maanta ay tahay hadii aan prefer idinka siiyo ama idin dulmaro mabaadi'da waaweyn ee xukuumadda dan qaran ee aan anigu wasiirka ka ahay aynu ka shaqeyno 25 keena wasaaradood qolaba meesha uga aadan ay kaga shaqeyso tiirka koowaad dalkeenu waxa uu baahi badan u qabo ayaa waxay noo soo doortay madaxda in uu noqdo ajandaha koowaad ee laga shaqeeyo kaasoo ah dib u xoreen iyo sugidda amniga saad ogtihiinba hadduu dalkeenu amni ahaan lahaa dalkeenu haddii nimanka cadowga ay shabaab iyo kuwa la midka argagixisada haddii laga xoreeyo waxaad garan kartaa ama fahmi kartaan dalkeenu maanta inaadan idinku ka ahaan lahayn qurbo inaadan qurbo ka joogi lahayn waxa maanta aad qurbaha u soo doonataan ee tacliinta leh shaqada leh ee nolosha fiican leh dhamaantoodaba dalka hadaad ku haysan lahaydeen ama sida dadka odayaasha yaqaanay bari samaadkii waaga dalkeenu u fiicnaa Soomaaliya ahayd waa yareed wax ka soo tahriibo kaliya waxa dhici jirtay in qofka uu soo doonto scholarship waxbarasho kadibna markuu wax soo bartana dalkiisa ku soo laabto ka shaqeysto maanta marka waxa soo dhan waxa dadkeena ka hor istaagaysa ogtihiinba kooxa magaca dhalinyaradana suurad xumeeyay magaca ummadana suurad xumeeyay magaca Soomaalinimada iyo dhaqanka Soomaalinimadana aad u suurad xumeeyay kooxa khawaarij ah oo fikrado qaldan iyo mabaadi' qaldan ay ku shaqeeyaan ee ah in ummadda thousands loo dilo bulshada la laayo ma taqaana in dheer garadkooda aqoon-yahankooda cuqaashooda nabadoonadooda kuwoodii wax bartay elite-kooda maalin kasta laaya marka waxaas waxaad garan kartaan waa duruuf kamid ah duruufaha dalkeenu ee bulshadeenu dibadda u soo maxaa la dhahaa qixisay ama bulshada u soo maxaa la dhahaa inay nabad ka raadsadaan ama nolol ku soo kaliftay maanta marka xukuumaddeenu waxay ka shaqeynaysaa tiirka koowaad u ah in dalku gaaro amni xasilooni nabad dalkuna laga xoreeyo cadowgaas si bulshadeena dalku ugu soo laabato meeshaas waxaan rabaa inaan idinkaga sheego maanta xukuumadda waxay ku guuleysatay labada sano ay jirtay wax dhiman xukuumadda saad ogtihiinba labada sano xataa uma buuxsamin waxay noo buuxsami doontaa labada sano hadduu Ilaahay yiraahdo 2 August maxaa yeelay xukuumadda waxaa lagu dhawaaqay ama la dhisay 2 August 2022 markaynu gaarno 2 August 2024 laba sano noo buuxsami karto noo buuxsamaysa waxa fahmi kartaa marka dadaalka iyo juhdiga waqtigaas la inta lagu bixiyay maanta cadowga waxa laga xoreeyay in ka badan 93 tuulo ama degmo ama deegaan waxa laga xoreeyay intaasoo degmo waxa laga xoreeyay intaasoo state waxaan isleeyahay meesha ugu fiicneed ayuu maanta la gaarsiiyay waxaan isleeyahay waqti yar oo dhimanna insha Allah dalkoo dhan in laga wada xoreyn doono Soomaaliya nabada amniya xasiloon barwaaqo inaad dhawaan insha Allah dib ugu soo laaban doontaan tiirka dib u xoreynta waa tiirkeena koowaad iyo sugidda amniga tiirka labaad waxa waaye cadaalad ummadeenu waad garan kartaan markii cadaaladda dalkeenu ay yaraatay markii cadaaladda dalkeenu ay ka suusha meesha waxa bilowday wax kasto cadaaladda ageenaysa ku ugu horeyso xasilooni daro amni darada ummadiyo kala fogaato ummadii iyo bulshadiyo kalsoonidoodii lunta marka si taa u soo laabato tiirka labaad ee xukuumadda dan qaran waxa weeyaan cadaaladda iyo in la helo garsoor madax banaan cadaaladda iyo garsoor madax banaanna waa laba shay oo aad ma taqaana isugu xiran sababtoo ah hadaan la helin garsoor madax banaan oo aan la dhisin guddigii garsoorka ama hay'adihii garsoorka si madax banaan hadaan loo dhisin ay xaaladda hadda dalkeena ku sugan yahay magacaabista ay ku yimaadaan waad fahmi kartaan ma ahan garsoor ka madax banaan inta badan institutionska si marka loo helo waxa waaye tiirka labaad ee xukuumadda dan qaran 25keeda xukuumad iyo dhamaan hay'adaheedu ay ka shaqeynayso waxa priority u ah cadaaladda iyo maxaa la dhahaa garsoor madax banaan tiirka saddexaad oo xukuumadda dan qaran ee ku shaqeynayso saad ogtihiinba waxa waaye markii la helo xasilooni amni dhamaan waa isku wada xiran la helo cadaalad garsoor madax banaan bulshadii waxa markaas dhacayso haddana
waxa la yiraahdo loo gudbaa Soomaali heshiis ah dadku waa kala irdhoobeen dadku waxbay isku dagaaleen soodimo iyo waxaan macno lahayn meelaan macno lahayn iyo waxyaalo yar oo loo kala xirxiray dadka isku qabsadeen waxyaalo yar oo daaqsimo ama ceel biyodyo laga fursan karaa waxa la yaabaa intaas oo naf oo qaali ah oo muhiim ah in loo dilo ama loo waayo ayaduna waxyaalaha marka taas sababeed waxay bulshadu markii cadaaladdu meesha ka baxdo amniga meesha ka baxo xasiloonida baxdo waxa iimaanaysa bulshadu inay kala irdhowdo tiirka saddexaad ee xukuumadda dan qaran ka shaqeynaysa waxa waaye Soomaali heshiis ah in la isu keeno meel kasta Soomaali joogto Soomaali heshiis ah tiirka afraad ee xukuumadda dan qaran ka shaqeynaysa ayaduna waxa waaye horumarinta dhaqaalaha ama macnaha isku filnaansho dhaqaale yani hadda saad ogtihiin ba dalkeenu ama dawladeena ama hay'adaheena dawliga ama qaybaha ugu muhiimsan inta badan hadda waxay wali ku jiraan kaalmo saaxiibada Soomaaliya ama dawladaha Soomaaliya saaxiibta la dawladan Finland ugu horeyso waxay ku jiraan xaalado wali maxay tole la kabo ama dhaqaalaheedu la kabo laakiin anaga qorshaha sidana waxa waay hadii la helo amni xasilooni cadaalad Soomaali heshiis ah waxaan isleeyahay waxaan naga badan dakhliga dalkeenu ama khayraadka dalkeenu uu leeyahay ku jira badda iyo dhulka intaas waxaan isleeyahay Soomaalina ka badan dunida kalena ay noo soo shaqo tagi kartaayo aynu ku noqon karnaa dad boqortooyo loo wada shaqeeyo ama dad qani ah oo wadamada adduunka horumarsan qaniga ah marka taana waxay noo tahay priority ah in Soomaaliya la gaarsiiyo isku filnaansho dhaqaale ay ka baxdo kaalmaha shisheeye ama kabka shisheeye tiirka shanaad ee muhiimka waxa waay saad ogtihiin ba xukuumadda dan qaran waxa waaye horumarinta arrimaha bulshada يعني haddii amniga la sugo cadaalad la helo Soomaalida oo heshiis la helo isku filnaansho dhaqaale la gaaro waxa waaye in la helo hadana kaabayaasha dhaqaale iyo bulshada in la horumariyo waxa ugu fiican in la maalgeliyo ummadi in lagu horumariyo waa bulshada in la maalgeliyo see loo maalgelina bulshadu waxay u baahan tahay adeegyada socialiska in laga maalgeliyo waxbarashada caafimaadka biyaha adeega dhamaantaas in bulshadu loo tayeeyo hadii loo tayeeyo waxa aaminsanahay waa yaraan lahayd Soomaali halkan joogto ama barafkan dalkeenu cimilada quruxda badan 12 bilood ee cimilada iyo jawigaas quruxda badan lisaga jiro ayaa mataqaana dadku soo aadi lahayd tiirka lixaad ee xukuumadda dan qaran waxa waaye Soomaalidu markay amni noqoto xasilooni yeelato garsoor iyo cadaalad yeelato Soomaalidu heshiiso isku filnaansho dhaqaale gaarto bulshadeedu horumarto haddana waxaynu u baahannahay Soomaali heshiis la ah dunida يعني sloganka waa ogtiin madaxweynaheena uu ku yimid aha Soomaali heshiis ah dunida heshiis la marka tiirka lixaad ee xukuumadda dan qaran ka shaqeynaysan waxa waay Soomaali heshiis la dunida saad ogtiin ba hadda anaga dalkan aan joogno Finland Soomaalida ku nool waad garan kartaan يعني waxay sameeyeen runtii waxaan isleeyahay dadka qurbaha ama bulshada qurbaha ama qurba joogta bulshada ugu fiican inay ku jirto ama bulshooyinka ugu hore safka hore inay ka tahay sababtoo ah sida dalku ay u mataleen ambassadors fiican uga noqdeen waxa wanaagsan ee positive ka ah hadda meelo badan aan soo marmaray qurbaha violenceska ama dhibaatooyinka dawladaha dalkaasi ay ku qabeen Soomaalida Finland waxay meelaha ugu fiican Soomaalida positive ka iyo wanaaga badan laga sheegay tusaale kamid ah waa aragteen maanta waxaynu booqanay iskuulkan la yiraahdo ee farsamada iyo bulshada ama human capitalka aqoonta ama bulshada ka kobciya xagga socialka la yiraahdo Diagonis Foundation markaan booqanay CEO gaan la kulanay noo sheekeynay qisadii uu ka sheekeynay nooga sheekeeyay Soomaalidu dad noocan waa dad fiican waay markay noo yimaadeen 90skii yani nin noocaas noo yimido wuxuu naga codsaday meel uu ku tukado waxay ahaayeen bulsho sidaana bulsho waxay ahaayeen wanaag badan bulsho waxa inta uu yani uu ka sheeganay yani waxa dareemaysaa markaas meeshaas inay Soomaalidu ahaayeen ambassador fiican waan waxa aan isleeyahay ama aan bulsho kasta ku bogaadinayno inay halkaas ka sii laba jibaaraan bulshada reer Finland hadda wanaag badan credit fiican ku leeyihiin dawladda halkan aad la nooshiine waxaan ka rabnaa halkaas inaad ka sii xoojisaan wanaaga iyo waxa badan halkan ka faa'iideysateen inaad ka faa'iideysteen bulshadan waxaan mar kale ayaduna aan rabaa inaan idinkugu
maxaa la dhahaa jeediyo dalkiina inaad ku soo laabataan dalkiina aad uga faa'iideysaan gudoomiyaha daa'imar waa ka dhawaajiyay si volunteerism ah inay ku yimaadeen ayagoo international organizations kala socdeen ilaa 3 magaalo laakiin waxaan rabnaa inaan dhahno Soomaaliya waa balaarantahay waa weyn tahay Soomaaliya soo wada gaara imaada isqeybiya qolaba markaad meel u dirtaan bulshada reer deegaan markaad meel u dirtaan gobol kuwa kale state kale u dira kuwa kale gobol kale u dira state kale u dira finally waxa ku imaadeen ku soo biyasho wataan caasimada intaas waxaan leeyahay Soomaalida reer Filaane quruxda badan ee dadkan wada hal doorka elite ama labeenta magaalada ah